waa kuwa muslimiinta ugu badan ee lagu cadaadiyo caalamka maanta ma ii sheegi kartaan muslimiinta ugu badan ee lagu cadaadiyo maanta caalamka ma malaysan kartaan waa xagee Myanmar Falastiin marka aniga la ii eego maanta muslimiinta ugu badan ee lagu cadaadiyo caalamka waa Shingan China muslimiinta Uyghurka in badan muslimiinta waa lagu cadaadiyaa Myanmar Falastiin laakiin China waa heerar kala duwan ugu yaraan Falastiin muslimiintu waa ay tukan karaan sax waxay dhihi karaan Allahu Akbar way soomi karaan way akhrin karaan Quraanka si ay deganaashuhu u gasho qalbiyadooda waa la cadaadiyaa shaki la'aan laakiin Shiinaha waxaa la isku dayayaa in muslimiinta la cirib tiro haddaad garanaysa taariikhda dhexbartamihii qarnigii 20aad waxaa la qabsaday qaybo ka mid ah Turkiga waxaana qabsaday dawladaha qaar qayb waxaa qabsatay Ruushka qaybtaas lagu magacaabo Shingan waxaa qabsatay oo la wareegtay Shiinaha laakiin dadka ku nool waa Turkistaanta bari waxayna ka dhigeen qayb ka mid ah Shiinaha si sharci darro ah sida ay sameeyaan dawlado badan waad kala garan kartaa wajiyadooda si fudud waadna dareemi kartaa inaysan Shiineys ahayn laakiin Allah subxaanahu wa ta'aala wuxuu siiyay dhulkaasi macdan qaali ah khayraad ay haystaan sida darteed Shiinuhu waxay ku dadaalayaan inay halka muslimiinta ka cirib tiraan dhammaanba waxayna bilaabeen sanadkii 2015 marka la waafajiyay warbixinada caalamku waxba kama ogeyn waxaa faafiyay qayb ka mid ah hay'adaha xuquuqul insaanka waxaana la bartay 2016 warbaahintuna waxay ka hadashay 2017 markaas sheekadu bilaabatay waxaa la sii bartay 2018 maxay ku sameynayaan waxaa jira laba nooc oo muslimiinta Shiinaha mid waa muslimiinta Uyghurka kuwa kale waa muslimiinta Shiinaha yacni muslimiinta Shiineyska ah dhibaatooyin way qabaan laakiin way yar tahay marka la barbar dhigo muslimiinta Uyghurka sababtoo ah muslimiinta Shiinaha yacni Shiineyska kale ay shaabahaan dhibaatooyin way qabaan laakiin marka la barbar dhigo muslimiinta Uyghurka aad bay u yar yihiin dhibaatooyinkoodu muslimiinta Uyghurka maalmahan badankood xitaa salaad ma tukan karaan inay soomaan looma ogola iyadoo Ramadaan lagu jiro inay afuraan baa lagu qasbaa in badan oo ka mid ah qamrada inay cabaan baa lagu qasbaa mana loo ogola barashada Carabiga haddii ay hadallada mas'uuliyiinta maqli waayaanna kaamam xabsiya ayaa la dhex dhigayaa xukuumadda Shiinuhuna waxay leedahay waa la dhaqan celinayaa in badan oo ka mid ah muslimiinta Uyghurka oo kaamamka xabsiyada ku jira waa la cadaabaa waa la cadaadiyaa diintooda inay ka baxaan baa lagu qasbaa waxaa lagu qasbaa inay shujuuciyad qaataan kuwooda bannaanka jirana waa la daba galaa kaamirooyin baa lala daba socdaa iyo aaladaha wajiyada garta waa galaangal xagga hay'adaha ah badankoodna maaha hay'ado islaami ah xitaa bishiina dhaaftay bishii July
22 dowlad ayaa warqad u qoray qaramada midoobay oo ay uga soo horjeedaan xadgudubka lagu hayo xuquuqda muslimiinta Iigorka ee Shiinaha. waa 22 dowlad. UN-kana waxaa ku jira ku dhawaad 195 dowlad. waa 22 dowlad waxay qoraal u qoreen qaramada midoobay ku leeyihiin xuquuqda muslimiinta Iigorka ee Shiinaha waa lagu xadgudbayaa. ma ogtihiin in 22kaas dowlad aysan ku jirin hal dowlad oo muslim oo arrinta ka soo horjeeda? dhammaantood waa dowlado aan muslimiin ahayn, waa dowlado reer Yurub ah. soo wax laga xishooda maaha inay jiraan wax ku dhow 56 dowlad oo caalamka ah, ku dhawaad 25% wadamada caalamku inay yihiin badankood muslimiin. 22 dowlad oo aan muslim ahayna xuquuqda lagu xadgudbaya ayay ka hortagayaan. sidoo kale markii ay kulmeen mas'uuliyiinta qaar ee dowladaha, markaana qaarkood waxay dhaheen muslimiintu waa tabar daran yihiin, waxbana nooma faa'iideynayso inaan ka hor imaano hadalka. xaqiiqda idinkaga warramayaa way saxnaan karaan. waxa ay samaynayaan haddii aadan ka hor imaan oo aad iska aamusnaato inay isticmaalaan baa laga yaabaa qodobka islaamiga ah. iska daa khasaaro yaroo dhacaysa si aad uga hortagto khasaaro weyn. usuusha shareecada arrintaas ogolaansho ayay kuu siinaysaa. iska daa ha dhacday khasaaro yar si aad uga hortagto khasaaro weyn. xitaa haddaadan ka hor imaan wax nafciya ka heli maysid. laga yaabo inaad aargoosato intaa kadib, laakiin ay dhibaatooyin ka jiraan waddankaaga. laakiin haddaadan xulan ikhtiyaarka koowaad ama kan labaad oo ah ku joojinta munkarka gacanta ama carabka, iska aamus. tani haddii mowqifku sidaa yahay dhab ahaan, haddii aad arrinta ka hor imaato laga yaabo inuu aargoosi dhaco, laakiin haddii aad aamusnaato shareecadu arrinta ogolaansho ayay kuu siinaysaa. laakiin 6 dowlad waa laga waayay hal dowlad oo xitaa geesi ah. 22 dowlad oo muslim ahayna geesnimadas waa laga helay. qisadu halkan kuma eka. qisada run ahaantii aadka u xanuunka badan waa maalmo yar kadib 37 dowlad waxay waraaq u direen qaramada midoobay oo ku leeyihiin xukuumadda Shiinuhu waxay ku samaynaysaa muslimiinta Iigorka waa ku saxsan yihiin, mana cadaabaan muslimiinta, kumana xadgudbaan xuquuqul insaanka, oo iyaga ayayba wax barayaan, waxay la dagaalamaan argagixisada. waa 37 dowlad. waxaa ka mid ah oo ku jira 15 dowlad oo muslima. wax ka badan 40% oo dowladahaasi ka mid ah ku taageera Shiinaha iyagoo leh wax ay ku samaynayaan muslimiinta oo cadaaba way ku saxan yihiin, waa la dagaalanka argagixisada. waxay ahaayeen dowlado islaami ah. alxamdulillaah Malaysia kama aysan mid ahayn. ma rabo inaan caddeeyo magacyada dowladahaas warqadda u diray UN-ka, sababtoo ah waxaan rabaa inaan baraarujiyo muslimiinta. ilaahay fadligii badanaa dowladahaas madaxdoodana waan la kulmay. mar kastoon la kulmo madaxweyne waddan, mas-uuliyaddeeda ka daaci ahaan waa inaan gaarsiiyaa fariinta Allah si siman, ha raacaan ama ha diidaan. ma rabo inaan sheego magacyadooda si aysan u dhibsan madaxdaasi, laakiin dalabkayga ku socda madaxda waddamadaasi wuxuu yahay rasuulkeenna xabiibkaa wuxuu yidhi haddii mid ka mida muslimiinta dhibaato ku jiro, taasi waxay la micno tahay in dhibaato ay haysato mid ka mid xubnaha jirka oo idilna waa ula xanuunsanayaa si uu u difaaco xubintaas. waa micnaha ummadda. haddii mid ka mida muslimiinta caalamka meel ka mid oo dhibaato ku haysato, waa inaad taageertaa. waa walaalkaaga diinta. sideed u taageeraysaa cadowga islaamka adigoo manaafic yar fiirsanaya? arrintaasi shareecada islaamku ma ogola. haddii aad tahay qof daciifa, iska aamus. daciif haddaad tahay, iska aamus. waxaad lahaanaysaa heerka ugu hooseeya ee iimaanka, laakiin iimaan waad lahaanaysaa. laakiin haddaad taageerto gaalka, midkaasi dilaya walaalahaaga, oo aad taageero u fidiso,
culummadeeni arrintan may ka hadlaan anigu caalim maahay waxaan ahay daaci shaqada daacigu waa inuu caalimka diinta yaqaan dhagaysta kadibna dadka gaarsiiyo caalimku diinta si fiican buu u garanayaa laakiin shaqada daacigu waa inuu fariinta islaamka faafiyo dadkana uu gaarsiiyo anigu caalim maahay marka waxaan ahay daaci waxaana ka hadla arrinta 2 maalin ka hor mar kalena waan ku celinayaa adinkoo mahadsan boosaskiina jannada ha ku bedelanina kursi madaxtinimo ama awood maamul ama maal adduunyada ah boosasna ha ka qabsanina oo ha ka diyaarsanina naarta raggaas rag shaqada ku wanaagsan maaha jannadu waa farxadda dhabta ah si faahfaahsan ayaan arrintaa uga hadlay kalaantan 7 bisha Agoosto shalay maxaa ku dhacaya ummadda muslimiinta ah waa ay tabardaraynayaan waxaa jiray waqti muslimiintu ay nambarka koobaad ahaayeen markii quraanku soo degay muslimiinta waa la xaqiri jiray xilligaas waxaa lagu magacaabaa ayaamul jaahiliya carabtu kacbada ay dawaafi jireen iyagoo qaqaawan waxay ahaayeen dad wax magarata ah balse markii Allah quraanka soo dejiyay muslimiintu waxay noqdeen nambarka koobaad ee caalamka waxayna ahaayeen qarniyadii laga soo bilaabo qarniga 8aad ilaa 12aad Yurub waxa loo yaqaanaa casriyadii mugdiga waa marka iyaga loo eego annaga maaha muslimiintu in badan ay ku hormareen sayniska iyo teknoolajiyada waliba hormar weyn nambarka koobaad ee caalamkan ahayn laakiin maanta tirada muslimiintu aad bay u badan tahay ku dhawaad 25% dadka degan caalamka waa muslimiin ku dhawaad 2 bilyan oo muslim laakiin waana la xaqiraa waa nagala faa'iidaystaa waana la mucaaradaa waxbana ma samayn karno sababtoo ah xilligaa hore xilligii saxaabada xilliga khulafaa raashidiin muslimiintu waxay ku dhaganaayeen quraanka iyo sunnada balse maanta waan ka fogaanay quraanka iyo sunnada xilligaas dad hodana maanan ahayn fuqaraa iska ahayn laakiin haddana waxaan haysanay diin aan ku dhaganahay maanta muslimiintu waa dadka ugu qanisan caalamka waxaan haysanaa dahabka madow batroolka haddana waana la xaqiraa sababtoo waxaan ka fogaanay quraanka iyo sunnada waxaan ka dalbanayaa walaalaha muslimiinta ee caalamka oo idil muxaadaradan alxamdulillah waa lagu baahinayaa caalamka oo idil sida YouTube-ka oo ay ku xiran yihiin wax ka badan 1 milyan iyo Facebook ay ku xiran yihiin 17.3 milyan iyo Peace TV qaybta Ingiriiska oo ay ku xiran yihiin 100 milyan oo daawade iyo Peace TV Urdu oo ay ku xiran yihiin 80 milyan oo daawade iyo Peace TV Bangala oo ay ku xiran yihiin 50 milyan oo daawade iyo Peace TV Chinese oo ay ku xiran yihiin 20 milyan oo daawade marka la soo duuduubo waa ku dhawaad 200 oo milyan oo daawade ugu yaraan barkood waa ay daawan doonaan insha Allah ما شاء الله سيد اللي sheegaba ku dhawaad 100,000 qof ayaa halkan ku kulmay stadiumkan dadka halkan jooga ku dhawaad waa 100,000 laakiin fariintu waxa ay gaaraysaa wax ka badan 100 milyan kun mar bay ka badan tahay halkan dadka jooga dalabkayga ku socda walaalaha dhammaan muslimiinta caalamka waa adinkoo mahadsan qabsada quraanka iyo sunnada hana ku bedelanina booskiina jannada kursi madaxtinimo ama awood maamul ama xoolo ama maal adduunyo fadlan arrintaa ha samaynina